horta kelmadda muddo kordhinta suuqa gashay wax jira ma aha. muddo kordhin cid u baahanna ma jirto. samata bixinta dalka unbaa lagu muxuu ahaa shaqada technicalka intay gaari kartaa waa muddada la leeyahay macnaheeda muddo kordhin. marka caadifadda dad intayna dhahaan wandhay kuma darsan kartaan wallaahi runa idiin sheegayna waa ku darsanaya jawaabo dad qaldan u hadlay looga jawaabay ahaayeen taas haddaa ka socotaan. laakiin hadda baarlamaanka shaqadiisa caadiga oo caadiga u lahaa un baan u fadhinaa iyo shuruuc waddanka u yaallo uu ka mid yahay covid-19 oo xaaladda soomaaliya say tahay loo jeedo iyo ansixintii hay-adihii qaxootiga shaqadiisa caadiga wataa wax muddo kordhin iyo waxyaalahaas annaga hadda maanta ku talagalkeennana ma aha mana jirto. xildhibaanaha kulanka laga celiyey laga kansalay ciidamo cusub aa la keenay walwalaa jiro muddo kordhinaa laga walwalsan yahay maxaa kordhintaas walwalkaan jira ka leedaha dadka ku daawanaya soomaaliyeed indhaha ku haya golaha shacabka maanta hadda arrimo dawladeed ama golo shacab inuusan bulshadiisa soomaaliyeed walwal iyo wax dhibaayo uusan u keenaynin cid walba muwaadila wax dareemaysa way ogyihiin wax walwal la dhaho ma jiro. waxaan bulshadaas ku qanacsanayn ama aan ku samatagin ama aan sharci ahayn meeshaan laguma hayo marka ma jiraan waxyaalaha la sheegaayo. xildhibaanada golaha laga kansalo maanta ciidamo cusub la keeno sidee kula tahay? ciidamada weligeeday waddanka joogtay weligeena amniga la sugi jiray maalintaa imaanayn waa naloo xeri jiray wax dheeri ma jiraan. lama kansalin waa xoogaa annaga dhan wax heer weligii lagu dhaqi jiray xeer hoosaad noo yaallo ciyaalihii markaas loo arko xoogaa buuq iyo lagu arko canaan sida ardaydii macallinka uu samayn jiray iyo baarlamanka waxba isma dhaamaan waa iska canaan wax weyn oo dhib ama kordhinta iyo ajanda la iclaamiyey ajanda kale loo keeni karaa sharciga muxuu ka qaban soomaalida kelmadda muddo kordhinta ah ee sida caadifadda ay u qaateen oo ay ka dhigaan mar walba waa iska joogaynaa cid rabta ma jirto. siyaasaddan lagu fashilmay annaga aan rabnay soomaali loo dhan yahay aan maxeeda u hakanay howlaheedii baarlamaanka maxaa iman kara doorashada la aadi doonaa xilliga afka loo yeelaayo doorashada iyo siday u dhici doontaada waaye xoogaaga yar ee laga hadli doonay ama muddada ay dheeraataa walwal laga qabo ayaan u macnayn karaa muddo kordhisi waxa technicalka ah waa wax muddo kordhin la dhaha male dalka doorasho aada mar walbana doorasho aadi doonaa wixii go'aanka masiibigan waxaan ka sugaynaa maamul goboleedyada iyo madaxweynaheena iyo dadka ku maqan haddii ilaahay amarkii ay noo soo hagaagtaan waa sidaan rabnay heshiisyadeennii hore hadday hagaagi weysana baarlamaankay u taallaa taas wixii aayaha Soomaaliya markaysaan waxaan ku suganahay baarlamaanka Soomaaliya oo runtii aad u nabdoon dhawaanna la filayo in kooramku markuu buuxsamo guddoonkuna yimaado aanu u guda galno ajandihii nala kugu yeeray sida aad la socotaan ajandaha nala kugu yeeray maanta waxaa weeye waa barnaamijkan aad u danaynayay oo ah covid-19 cudurkan covid-19 dilaaga ah oo dhowr qodob baan u danaynayo waa maroo waxaan ka tirsanahay guddigan adeegga bulshada oo caafimaadka iyo waxbarashada waxaan ka tirsanahay bacda caafimaadka oo takhasuskaygu waxa weeye waa public health oo masterate-kaygu sidaad la socotaan wax badan baan idinku wargeliyey iyo covid-19 oo aniga igu dhacay oo sanad ka hor anigoo London jooga aan ahaa dadkii ugu horreeyey ku dhaca sidaa darteed waa ajando ama qodob aan aad u danaynayo jeclaan lahaana inaan kelmada ka idhaahdo marka fursaddeeda aan helo waxaan leeyahay cudurkan waa dilaa aad u dhib badan waxaa garan karaa qofkii uu ku dhacay sidaydoo kale waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanhayaa kuna wargelinhayaa in ay qaataan talooyinka waanooyinka dhakhaatiirtu ay soo gudbiyaan oo siday tahay u qaataan waxaa kale waan doonayaa inaan iyana ku biiriyo fikirkayga la xiriira tallaalka hadda Soomaaliya la keenay waxaan leeyahay tallaalku waxaa la eegaa inta badan marka caafimaad ahaan ama pharmacology loo eegayo efficacy-ga ama waxtarkiisa iyo wanaaggiisa marka loo eego dhibaatadiisa inta ilaa hadda la hayo oo aan anigu xoogaal ku ahay 25 milyan oo qof oo dalka Ingiriisku anigu aan carruurteydina degantaa aniguna aan deganaa ayaa qaatay ilaa iyo hadda waxaa la sheegayaa 40 qof oo wax ku waxyeelowday oo weli aan la xaqiijin karin isaga inuu yahay
waxaa jira shirikaad ganacsi oo tartamaya oo tallaallo badan soo saaray oo ku tartamaya suuqa maxaa yeelay waxaanu lacag weeye lacagta marka waxaa rabaa shirkadba shirkad inay suuqa u gasho sidaa darteed waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed tallaalka haddii aad hesheen fursaddan ilaahay idin keenay inaad ka faa'iidaystaan oo tallaalka aad qaadataan gaar ahaan dadka waaweyn oo anigu aan ka mid kahayo runtii dadka frontlineka ku jira oo sida shaqaalaha caafimaadku iyagu waa muqadas waa inay qaataan dadka da'da ah oo 60 ka weyn waa ku talinaya inay qaataan maxaa yeelay difaacooda ayaa nugul dadka u nugul cudurrada kala qaba sida dhiigkarka iyo sokorta iyaguna inay qaataan marka waxaan leeyahay waa bogaadinayaa intaa markaan ka gudbo sidaad arkaysaan weli ajandihii nooma furmin waxaa meesha ka maqan baarlamaanka weli aanan ii muuqan 15 xildhibaan oo saaxiibaday ahaa oo runtii maanta weli haa gudoomiyaha baarlamaanka kulankan kula ka horreeyay in xildhibaanada meesha fooda kiciyeen uu carbaa 15 xildhibaan oo banaanka ka saaray oo shaqada baarlamaanka ku joojiyay marka xildhibaan uu kala shaqeeyo sidee u aragtaa runtii baarlamaanka xaq uu leeyahay baarlamaankaas xildhibaanada arrinta iyada waa arrintan rabayba inaan micnaha aan ku soo qatimo sidaad arkaysid waxa aan iga muuqan baarlamaanka xildhibaano saaxiibaday oo maalin dhoweyd xoogaha halka kan guddoonka iyo iyaguba wax kala gaareen waa xildhibaano aan saaxiibo u nahay wey runtii waa ka xumaa inaan maanta garabkayga aysan joogin halka kan balse waxaan isku dayaya haddii la yidhaahdo guddoonka iyo iyagaba inaan dhex galo oon arrinta iyada ah aan dhexdhexaadiyo oo aan runtii wixii qalad dhacay micnaha gacmo geli jiro hoos baa la dhaqaya qaladka isagaa micnaha in la saxo iyaguna ay micnaha shuruucda dalka iyo baarlamaankaba ay dhowraan guddoonka iyo guddiyada kalena iyagana waxaan ka codsan doonaa inay iyaguna mudnaan ay siiyaan oo ay oggolaadaan in 15 xildhibaan guddoonka waa waantaasaan ka shaqaynaya marka intaa ka badan wax badan kama oran karo maxaa yeelay maalinta ma joogin dalka waa ka maqnaa farac UK sida la socoto shalaan imid marka kama hordhacayo wixii kale oo ajandaha ka baxsan oo aan ajandaha ahayn runtii mar kale aan u dhigan doonayo waraysiyada kale oo marka maanta baarlamaanku noo soo xirmo ma kaliya galaysa xildhibaano kala kaashanaysa maadaama gudoomiyaha baarlamaanku uu 5 kulan ka joojiyay waxaan isku dayayaa baraabulsho ku soo qoreen inay imaanayaan ay hadda ay imaan waayeen runtii waxaan la kaashan doonaa saaxiibo baarlamaanka ka mid ah in arrinta iyada guddoonku iyo xildhibaanada micnaha aan iska horkeenno soo hor fariisinno oo arrinta iyada ah qalad waa dhacaa waana laga heshiiyaa marka intaa un baan micnaha ka leeyahay saaxiibada qaaliga oo iyaguna maanta aan fursad u helin baarlamaanka inay yimaadaan guddoonkuna uu dhowr casho oo micnaha kalfadhiga uu ka joojiyey marka waa arrinta iyadaa halkaas ayaan uga baxaya isleeyahay ajandayaasha hadda la keen inay jira mas'uuliyad sidii xildhibaanadii oo lagu dhigay siday sheegeen inay ku qarsan tahay dimuqraasi dhanka madaxweynaha runtii sidaad la socotid in badan aan warbaahinta u sheegay 26 Sebtembar sanadkii 2020 baarlamaankanu waxa uu ansixiyey sharci ay noo keeneen sharci ka soo bilowda golaha fulinta oo ka koobnaa madaxweynaha iyo dowladaha xubnaha ka ah maamul goboleedyada dowladda federaalka waa heshiis siyaasadeed oo iyagu ay soo gaareen dhexdeeda oo baarlamaanka la keenay anigu ma ahayn 252 xildhibaan baa u codaysay oo isugu jiray aqalka sare iyo golaha shacabka waxaan ka mid ahaa labadii xildhibaan ee diiday in doorashada dadbanaan la aadin xanuunka iyo dhibka iyo ay leedahay darteeda roogahay marka iyadoo saasa sharciga soo baxay waxa uu qeexay ku caddaay oo xildhibaanada aniga iyo nin kale mooyaane inta kale ay saxiixeen in haddii doorasho dhici weyso wakhtigeeda ay ku dhici weyso sidii horeyba looga bartay dowladihii ka horreeyey dowladdii madaxweyne xasan sheekh oo micnaha madaxweynaha ka 7 bilood ayay wakhtigeeda dhaaftay tii madaxweyne sheekh shariif sidoo kale 1 sano ayay wakhtigeeda dhaaftay oo lagu daray iyadoo taa laga duulaayo aqoonna loo leeyahay dhaqanka soomaalida ayaa qodob waxaa lagu daray ah haddii doorashada wakhtigeeda ay ku dhici weyso qodobka saddexaad farqadiisa koowaad waxay leedahay baarlamaanka tobnaad ee hadda jira ayaa shaqada sii wadaaya qodobkaas
farqadiisa labaad waxay iyaduna leedahay hay-adaha dastuuriga oo madaxweynaha iyo golaha fulintuba ay ku jiraan ayaa iyaguna xilka sii wadayay. sidaa darteed waxaan qabaa inaan muddo kororsiba loo baahnayn, maxaa yeelay muddo kororsiba ma jirto ilaa baarlamaan ka bedelo baarlamaankana joogayo. marka fikirka ah muddo kororsigu micnaha mid socon kara maahan. baarlamaankanu ilaa maalin buu joogi karaa, bil buu joogi karaa, sanad buu joogi karaa, 10 sano keeni karaa ilaa doorashada dalku uu ka aado. marka waxaan leeyahay sidaa inay ummadda ula socdaan ayaan ku wargelinaya. maanta baarlamaankan joognaa waxaana loo soo diray annaga ajandaha COVID-19 waxaana sugaynaa dooddaas inay furanta haddii la yidhaahdo oo ku saabsan COVID-19. marka annaga sideedaba dee baarlamaanaan nahay, ajandahana loo soo diro oo habeenkiina loo soo diraan ku nimaanaa meesha. marka ajando ku darsasho iyo ah ama ajando kale ah looma soo dirin. marka saas daraaddeed cidda sheegta idaa laga rabaa su-aashaas inay ka jawaabto. annaga waxaana loo soo diray COVID-19. waxaan rajaynaynaa doodda inay mar dhow noo bilaabato insha allahu tacaala, baarlamaanka noogu furmo si degan oo jawigoodu degan yahay. horta dee annaga meeshaan waxaan u joogno waxaa waaye shaqo baarlamentary, xeerar iyo waxaa noo yaalla xeeroosaadka cidda jabaysana waxaa laga rabaa inuu ilaaliyo waa guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoonka oo dhan. marka guddoonka ayaa ka soo saaray go'aamadaas oo xeeroosaadka iyo shuruucda baarlamaanka dhexdiisa u tiigsaday. midda ku saabsan waxyaabaha kaloo xantaa la sheegaya waa kuu sheegay. annaga hadda waxaa meeshaan u joognaa waxaa waaye COVID-19 inaan dooddiisana loo soo diray. marka ajandaha hadda aan meesha oolin in inta la sheego baarlamaanka iyo bannaanka iyo dacaayado lagu baxshana xoogaha waa laga fiican yahay. waana rajaynayaa saaxiibada iyo xildhibaanada inay iska dhaafaan dacaayadahaas oo ay shaqada baarlamaanka ku soo noqdaan, dalkii dadkan ay u hiiliyaan, maadaama shacabka Soomaaliyeed annaga aan wakiilo ka nahay ayna sugayaan inaynu insha allahu tacaala shaqadii loo idmaday ee baarlamaanka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed noo idmadeen inaan qabanaan rajaynayna insha allahu tacaala si fiican ku socoto. dalku waa ogtahay xaalad adag ku jira COVID-19 ku saabsan. xaaladaasaan waxaan rabnaa si loola tacaali lahaa inaan ka doodno. marka fursaddaas hala baxsho. xildhibaanadana waxaan rajaynayaa inay ka waantoobaan saaxiibaday ah inay iska dhaafaan inay carqalad ku noqdaan shirarka baarlamaanka socda. amaasanta baarlamaanka iyo banaankiisa xildhibaanaduna ma soo geli karaan sidee aragtaa? aniga meesha ciidan waa waardiin jiray, ciidanka waardiin jiray, ciidan ka badan hadda kuma arkin. marka ma garanayo haddana ciidan oogama dhex jooga baarlamaanka. aniga hadda dee baarashuud kuma imaanina baarlamaanka waxaan ku imid baabuur iyo lug, wax dhibaatana lama kulmin. waa maasanta maya wax baaray iyo wax ilaada kaarka ay dhiib iyo xilli aqoonsiga sidii caadiga ahayd moogi wax ka cusub ma jiraan. xildhibaanada saaxiibada ay la gelin maanta xal xoriyadooyinka ayagana isku dayayaan inay yimaadaan sidee u aragtay taas dee guddoonka baarlamaanka xeer ka soo saaray iyo sharci. marka waa rajaynaya inay u hoggaansamaan oo maadaama dee xeer soo baxay xeerkaas ay u hoggaansamaan. laakiin hadda wax dhibaataha kale oo ama waddo ku arkay ama howlka hadda aan kala kulannay midna ma jiraan. ajandahana loo soo diray kuma jirto COVID-19 waa amaasanta. hadda ajandaha annagana loo soo diray waa COVID-19 aan meesha u fadhinaa inaan dooddiisa furno. ajandaha kale cidda ka cabsanaysa iyo cidda sheegaysa ayaa la rabaa inaan ka jawaabto. sidaan u aragna waxaa waaye runtii COVID-19 laftiisu waa dhibaatadana haddaan laga hadlin iyo cidda ka hadli lahaydna waa golaha shacabka Soomaaliyeed. maxaa yeelay dalkii annaga mas-uulka annagana laga rabaa inaan dooddaas inta furno aan xal u helno maadaama uu shacabka Soomaaliyeed dhibaato badan COVID-19 ku hayo. marka haddaan annaga shacabka u shirin oo danahooda aan annaga difaacin oo aan saaxano dhahno laskuma imaan karo yaa cid u maqan yaa waaye shacabka Soomaaliyeed oo u doodayso oo rabto xalka inay keento. waa shaqada u taalo dowlad goboleedyada iyo qolada heshiiskiisa 7 September gashay waxa waaye dalkana doorasho geliyaan wixii aan ku heshiinay la fuliyo. maxaa yeelay annaga waxay noo keeneen heshiiskaasi ma ahayn midkii baarlamaanka ansixiyey oo qof iyo cod. waa loo ansixiyey hadda heshiiska 7 September heshiis sharciya waaye. ayagana waxaa laga rabaa inay u hoggaansamaan oo fuliyaan intaad fadhiistaan waxyaabaha yararka hadda u dhiman ay dhammaystiraan. waxaan rajaynayaa dalkana doorasho ka dhacdo insha allahu tacaala.